بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 357 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وفي لفظ 40 ليلة. رواه الجماعة إلا البخاري، والحديث الصحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 13 bishii labaad safar sanadka 1442 islamarkaana waafaqsan 30 bishii sagaalaad sanadka 2020. waxaanu ku jiray mawduuceennii qiimaha badnaa inoogu magac daran yidhi annadaafatu min alislaam. nadaafaddu waa qayb oo islaamka ka mid a, qayb oo diinta ka mid a, iyo diinta islaamku. alislaamu diinun yadcuu ila anadaafati wa ila adahaara. islaamku waa diin ugu yeedhaya qofka nadaafadda iyo dahaarada iyo muuqaalka kore iyo ka gudaha buu hagaajiyo. shalay waxaanu soo marray ikhwati fillaahi muuqaal ka mida muuqaaladu islaamku nadaafadda uu maaragtay dadka ugu yeedhayo, iyo qofka muslimka ah madharkiisa kore sida la rabo inuu u hagaago iyo gudahaba. waxaan soo marray inuu xadiidka ahaa 10 min alfitra, 10 arrimood min sunan alambiyaa bay ka mid tahay, ama min addiin bay ka mid tahay. 10ka arrimood waxaa ka mid ahaa maaragtay shaarubtoo la gaabiyo, garhkoo la daayo, cadayga oo la cadaydo, maaragtay biyahoo sanka lagu jiido, luqluqashadiina madmadadiina ka mid bay ahayd, cidyahoo la jaro, xubnaha faraha, lugaha iyo gacmaha laalaabkooda oo biyaha la gaadhsiiyo oo la dhaqo, wasaqda laga saaro, kilkisha timaha ku yaallo oo laiska zuuliyo oo la xiiro, timaha hoose oo la xiiro, iyo biyo lagu isjeesto. intaa 10kaaba waxay ka mid ahayd maaragtay waxaa leeyahay maaragtay gudmadana lamid wey, alkhitaanu waa ina lamid wey. waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan fitrat lislaam. marka waa nadaafadda iyo xikmado fara badanoo shalay ka hadalay ayaa ku jirta. maanta xadiidkeennan wuxuu ku saabsan yahay weli muuqaalkii iyo nadaafaddii islaamka ayaanu iyo ka hadalka oga hadlay baan ku jiraa. xadiidkan anas bin malik radi allahu tacaala canhu wa ardah, oo khaadimka rasuulka ayaa wuxuu leeyahay waqata wuu noo xadiday lanaa annaga, wuu noo waqtiyeeyey. si loo fahmo wuu noo xadiday wey, taxdiid buu noo sameeyey wey. waqata waa noo xadiday oo noo madaleeyey lanaa annaga rasuululahi sala allahu alayhi wasalam fii qasi shaaribi, shaarubta gaabinteeda, iyo wa taqliimi aladfaari, cidyaha jaritaankooda, iyo wa xalqi alcaanati, timaha hoose xiiritaankooda, iyo wa natfi libdi, kilkilaha timahooda tifitaanka iyo xiiritaankooda. wuxuu nabigu noogu xadiday allaa natruka inaanu ka tegin oo nadaynin akhara wax ka badan min 40 yowman, 40 maalmood wax ka badan inaan nadaynin. wa qaala maratan ukhraa, lafdi kale wuxuu ahaa 40 leyla. ibnu maaja iyo keyrkii baa lafdigaa kale soo saaray. ikhwati fillah, xadiidkan horta waa xadiid saxiixa weeye. umahaasitahana soo saareen ilaa bukhaariga mooyaane, inta kale way soo saareen sida kii aan sheegnay oo kale weyn shalay. marka umahaasitaha kale waxaa weeyaan 5 kale waa saxiix muslim iyo sunan abi daawuud, sunan tirmidi, sunan ibn maajah, sunan nasaa'i. imaam axmed asna musnadkiisuu ku soo saaraya. xadiidkuna waa xadiid saxiixa wey. dhammaantood haddaan milicsana mid kasta meesha xadiidkan uu ku yaallo, saxiix muslim waa 258 wey. imaamu nasaa-ina waa xadiidka 14 wey. lafdigan aanu dooranay nasaa'i baanu ka soo qaadanay. alimaamu tirmidaasna waa 2759 raqamka xadiidka yahay. abu daawuudna waa 4200 xadiidka raqamkiisu. ibnu maajahna waa 295. idan intaasoo dhanba way soo saareen. marka xadiidku waa saxiix wey. xadiidkan ikhwati fillaahi 10 min alfitra, 10 arrimood waxay ka mid tahay sunan alambiyaadi. 4 ka mida
ayaa si khaas ahaaneed buu islaamku oga sii hadlay. halka waxaanu ka qaadanaynaa daryeelka iyo maarata islaamku uu aad iyo aad ictina u siinhayaa nadaafadda wixii ku saabsan nadaafadda iyo dahaarada iyo muuqaalka qofka ka muuqanaya kore. 4 arrimood oo 10kii arrimood ka mida ayuu islaamku haddana qofkii looma daynine time baa loo sii qabtay. 4 arrimood oo nadaafadda iyo muuqaalka iyo intuba kharibahaya. 4 arrimood intaa ka badan waa inayna meeshaa ku oolin bali, waa in la zuuliyaa, waa in la jaraa, waa in la xiiraa. 4 arrimood maxay yihiin? 3 waa timo weeye, midna waa cidiye weeyaan. waa 4 jirka bini aadamka ka soo baxa weye. marka halka waxaad garanaysaa daqiiqa islaamku iska daa qofka keligii lagama hadline, hataa xubnihiisi baa xabad xabad looga hadlay. ilkihiisi baa laga hadlay oo lihi ha cadaydo, shaarubta ka soo baxaysay baa lihi ha jaro, garhki baa lihi ha daayo, cidihii baa lihi ha iska jaro, timaha kilkilaha lihi ha iska jaro, timaha hoosaa lihi ha iska jaro. bal u fiirso, xubnihiisi baa xabad xabad looga hadlay. 4 arrimood anas bin maalik wuxuu leeyahay nabiga wuu noo waqti buu noo sameeyey, bimacnaa xadada lanaa wey, wuxuu noo taxdiidiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. 4 arrimood buu noo xadiday oo waqti noogu sameeyey: shaarubta gaabinteeda iyo cidiyaha jaritaankooda iyo timaha hoose xiiritaankooda iyo kilkisha timaha oo laiska xiiro. 4 arrimood nabiga wuxuu noogu xadiday 40 beri ka badan, 40 maalmood ka badan ama 40 habeen ka badan inayna meesha ku oolin. bimacnaa aqsa xad ugu badan iyo waqti ugu badanoo meesha ay ku yaalaan waa 40 beri wey, waa 12 beri wey. laakiin macnaheedu maa ka hor 40 la gaadhinba waa la jari karaa. haddaad u aragta shaarubta 40 beri ka horba inay soo dheeraadeen waad jari, cidihii inay soo dheeraadaan 40 beri oon la gaadhin waad jari, timihii hoose waad goyn, kilkish. macnaheedu maa 40 baan sugayaa, waxa weeyaan inta ugu badan ee meesha ku ooli karaan waa 40 beri wey. 40 beri inay dhaafaan lama ogolo, mamnuuc wey. laakiin 40 beri wixii ka hoose waa la goyn karaa, oo waxay ku xidhnaanaysaa kolba say usoo baxaan. macnaheeduna lagama fahmaayo 40 beri ilaa ay ka gaadhaan yaan la taabanin, may 40 beri yayna dhaafin wey. meesha ugu badan la dayn karo ay joogi karaan waa 40 beri wey. 40 beri inay dhaafaan lama ogolo, laakiin 40 beri ka hor waa la jari karaa calaa xasab kolba baahiduus ay keento wey. cidihii baa dheeraaday, 40 beri baan la sugi ma dhahays, wasakda iyo jaafigoo dhan baa gelaya. maarata shaarubtii baa dheeraatay, 40 beri baan la sugi ma dhahays. timihii kilkishaa dheeraaday, 40 beri baan la sugi dhihi mays. kuwii hoose sidoo kale weeyaan. idan 4 arrimood oo sunanul ambiyaa ka mida si khaasaaneed buu nabigu u taxdiidiyey. waqata bimacnaa xadada lana, wuu noo taxdiidiyey wey. waxaa kaloo soo arooray waqata lanaa rasuul lah sal oo faacilka rasuulku yahay. waxaa soo arooray wuqita in la yidhahdo majhuul laga cabiro, ciddii taxdiidisay aan la sheegin. labaduba 2 riwaayadood maarata 2 lafdi oo saxa weeyaan. idan ikhwatii filaahi, halkaas rag iyo dumarba waxaan raggu shaarubta raggaa khaas laha, laakiin 3 kale cidiyaha, timaha hoose, kilkilaha, rag iyo dumar isku mid wey. 40 beri inayna dhaafin, aqsa xad ooli karaan waa 40 beri wey. laakiin ka hor baahidu hadday keento oo maaragtay wuu jari karaa. macnaheedu ma in lagu leeyahay ilaa 40 beri faraha ka qad, waxaa laleeyahay 40 beri yayna kula dhaafin. idan halkaa ikhwatii filah waxaanu maarata ka qaadanay islaamka suu u daryeela nadaafadda. maxaa yeeley 4 arrimoodoo la sheegay, 4tuba muuqaalka qofkay kharibi hadday xadda ka baxaan. shaarubta hadday dheeraato, cidiya dheerdheer qofka hadduu yeesho iyo wixii lamidka, labadaaba madharkii iyo muuqaalkiisi bay halaynayaan. labadaa cidiyaha iyo shaarubta muuqaalka qofkay halaynayan. qof shaarubtiisa halkaa joogto wasakoo dhan qaadanaysa, cidiya dheerdheer, waxaasoo dhan wasakna way qaadanayaan iyo nadaafad darro. muuqaalka iyo qofka madharkiisa korena way kharibhayaan. labada kalena waxay kharibhayaan maaragtay waxaa ka iman dhidid iyo suudh iyo mujtamaca uu qofku ku dhex jiro, naftiisa iyo mujtamaca uu ku dhex jiraba way kharibhayaan. idan labaduba islaamku uu ilaalinaya, adi naftaada iyo mujtamacaad la dhaqmaysa nafta, labaduba waa la ilaalinaya nadaafadooda, inay dadka aad ku dhex jirta ayna ku karahaysanin. idan ikhwati filaahi,
qiimaha islaamku uu leeyahay xaqiiqatan lagama helayo nidaam qaabka u daryeela qofka lagama helay inay ciddiyuhu kugu baxaan oo wasaqdu gudahooda tif ka noqoto oo adiga iyo maaragtay ciddiyaha intay la ekaadaan adiga iyo libaaxa ciddiyihiisa ladin kala garan waayo oo bini aadam inay waxaan yihiin ciddiyahan ku yaallay in kale la kala garan waayo waa arrin aan sax ahayn wey arrin aan sax ahayn wey sidoo kale shaarubtu inay markaa shaydaannimo camal ay noqoto intaa ay la ekaato waxalaale wuxuu qofku cunahayo iyo cabahayo o dhan ay wada gasho waxaan saxay saxarka iyo qashinka o dhan ay qaadato wax saxa mo sidoo kale timaha hoose iyo kilkishi iyo inay intay xadda ka baxaan ay hallaabaan oo dhididaan oo wasaq ku dhalato oo markaa ay suudh iyo waxaan raa'ixa aan fiicnayn ay ka timaado oo qofka iyo mujtamaca ay maaragtay ay karahaystaan lama ogolo waxaasoo dhan lama ogolo waqata xadada wuxuu noo xadida lana annaga rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam fii qasti shaaribi shaaribta gaabintaankeeda iyo wa taqliimi aladfaari cidyaha jaritaankooda taqliim iyo qasul adfaar labadu way soo qasi iyo taqliimka ka caamsan iyo waxalqi lcaanati timaha hoose xiiritaankooda iyo wa natfi libdi kilkisha tifitaankeeda iyo xiirideeda wuxuu nabigu noo xadiday allaa natruka inaana ka tegin oo na daynin akthara wax ka badan min 40 yowman 40 maalmood wax ka badan wa fii lafdin 40 leyla 40 habeen ama 40 maalmood ka badan inaana daynin laakiin 40 beri hadday ku yaalaan la dhihi maayo maxaad u xiiri weyda lama dhahay laakiin kolba baahidu intay isay tahay buu fiirinaya 40 beri ka hor hadday baahidu keento oo inay bateen u arko wuu xiiri karaa laakiin 40 inay dhaafaan marnaba lama ogolo 40 inay dhaafaan lama ogolo idan ikhwati fillah halkaasna waxaanu ka qaadanay daryeelka islaamku daryeelaya nadaafadda iyo qiimaha qofka haykalkiisan qaabkiisan kore iyo madharkiisa iyo muuqaalkiisa iyo mujtamaca uu la dhaqmayo had iyo jeer waxay ku karahaysanayaan inuu iska ilaaliyo iska zuuliyo oo had iyo jeer qofka muslimka qalban wa qaalaban daahirka iyo baadi gudahaba inuu nadiif ahaado boorinta islaamku uu boorinayo weeye iyo daryeelka iyo nabigu sida uu saxaabadiisa uu daqiiqa ugu ahaa hataa ayaga looma daynina waa loo xadiday 40 beri ka badan lama ogolaali inay maartay waxyaabaha meesha ay ku yaalaan ciddiyay kugu yaalaan timihii kugu yaalaan hoose maartay shaarubti kugu taala lama ogolaali 40 ka beri lama ogola 40 beri ka badan lama ogolaali ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaat alculaa inuu xaqana tusanuun irtaaqa xaqa raacitaankiisa hal mar ba xadiidka ku celinaya الحديث 357 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتغليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما وفي لفظ 40 ليلة رواه الجماعة إلا البخاري والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.